beesha bariga burco runtii waxaan aaminaa beesha bariga burco cidda raacda inay guushu raacdo dalkana difaaciisa in lafdhabar yihiin maan waqanaano lagu abuuskareeyo guryaha xadaan aan dalkooda iyo gurigoodii meelna aanay kaga waran dhibaato badan bay nagu hayaan ay qolada immigration-kuna shaqadooda qabsadaan ay xuduudaha ka xidhaan dadkan iska soconaya iska daglas dal la iskama galo waxaad leedaysaado haddii imika beesha bariga burco xisbi raacdo ama madaxweynaha iyagu dhisayaan ayaa guuleysanayo madaxweyne Soomaaliland ka noqonaya ciday beesha bariga burco raacdo ayuma madaxweyne dalka maadaama uu wadankii madaxweyne u yahay dalkana hadii lagu soo duulo waxaan aaminsanahay bariga burco ama bariga aan ka hadlayno maanta inay dadka difaaca runtii lafdhabar ay yihiin oo maantaba ay difaacayaan qarankii dadkeena waxay kaga dhigtay dad shisheeye ah oon aamin lahayn inay guryahooda ku aaminaan bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti haboon daawadayaal hadda waxa barbarkayga fadhida siyaasiyad madax bannaan saada dheer oo inta badan ka shaqeysa arrimaha tabarucaadka dhinacna siyaasadii kaga jirta iyo arrimaha dalka ayaan ka wareysan doonaa sidaada waan ku soo dhaweynayaa ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu safaro ugu baxay goboladii bariga Soomaaliland gobolo badan buu tagay qaarna way u harsan yihiin bal ugu horeyn safarka madaxweynaha adigu sidaad u aragtaa bismillaahi axmed daahirow aad baan kugu mahadcelinay beejkaaga runtii oo atay siyaasi runtii ama hal abuure wariye ah oo aan aad u jecelahay dadkan taageero ka mid ah su-aasha aad weydiisay madaxweynaha wuxuu ahaa safar runtii dheer oo badan oo gobolada Soomaaliland ku mareeyay waxaan aaminsanahay safarkaasi inuu yahay safar dastuurku siiyay maadaama uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland yahay tagi karo goboladiisa Soomaaliland soona booqan karo sidoo ogaado xaaladaha uu dalku marayo ayaan anigu aaminay way dad badan markay arkeen soo dhaweynta madaxweynaha waxay lahaayeen maxaa loo soo dhaweynayaa waxyaabo kale oo ayaa la hadal hayay bal adigu ka waran wallahi waxaan aaminsanahay dadka oranaya waa dad iska wax magarata ah waa in madaxweynuhu xaq buu ugu leeyahay macaarida maxaafadba in la soo dhaweeyo waayo waa madaxweyne qaran oo dastuurku siiyay inuu yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastana mari karo cid kastana soo dhaweyn karto ayaan u arkay anigu way madaxweynuhu wuxuu la kulmay beesha bariga burco bal ka waran deegaamada badan ee bariga Soomaaliland ee uu marayay iyo beelaha uu la kulmay wallahi waxaan u aaminsanahay beesha bariga burco inay jamhuuriyadda Soomaaliland lafdhabar yihiin waa dad sharaf iyo qiimo weyn aniga iga mudan runtii waxaan ku qiimeyn karaa oo kaliya maalintii buurta gacan libaax aad aragtay waxyaabihii ka dhacay dadkii reerkii kaliya xalliyay salaadiintooda iyo boqoradoodu inay haayeen waxaan aaminsanahay gobolada bariga dadka aad weydiisay deegaanada ahi inay yihiin Soomaaliland lafdhabar yihiin hal dooro badan oo hebel iyo hebel ka tilmaami karaan ay ku jiraan haddaan soo qaato maxamed cabdilaahi ducaale runtii wasiir hore ahna wasiirka arrimaha dibadda oo runtii si fiican u hadlayay waxaan aaminsanahay inuu ka mid yahay ama uu ku jiro hal doorada beesha bariga burco mujaahid maxamed kaahin axmed aha wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha xusbiga kulmiye isaguna la farbir rag badan oo hebel ah oo garanayo xirsi xaaji cali uu ka mid yahay rag badan oo garanayo hebel u garanayo oo ciidaa ka badan uu ka mid yahay wasiirka diinta iyo cuqaabta maxamed xaaji aadan uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda waxaan arkayaa rag badan oo aan garanayo hal doorro ah oo ka mida beesha bariga burco runtii waxaan aaminaa beesha bariga burco cidda raacda inay guushu raacdo dalkana difaaciisa in lafdhabar yihiin maan waqanaa anigu axmed daahiro marka ma waxaad leedaysaado haddii imika beesha bariga burco xisbi raacdo ama madaxweynaha iyagu dhisayaan ayaa guuleysanayo madaxweyne Soomaaliland ka noqonaya ciday beesha bariga burco raacdo ayuma madaxweyne dalka ka noqonaya taasana anigu aaminsanahay maxaad ku sababaysaa marka waxaan ku sababeynayaa dad badan ay raaceen ayaa soo baxay waxaan aaminsanahay dawladda udub inay lafdhabar u ahaayeen oo cid badan hogaamin jirtay oo dalka ka talinaysay waxaan aaminsanahay inay raaceen xusbigii kulmiye ee mujaahidkii weyne axmed maxamuud siilaanyo isna lafdhabar u ahaa oo iyagu ay wadeen uu guuleystay saksir garoobay waxaan aaminsanahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha dalkan maanta kursiga ku fadhiyana inay raaceen beesha bariga burco iyagu ay raaceen uu guuleystay waxaan aaminsanahay cidda iyagu shaxda u dhigaan inay guuleysato beesha bariga burco way mar haddii imika aad sheegtay in beesha bariga burco cidday raacda ay guuleysanayso maadaama ay saddex murashax jiraan oo Muuse iyo Ciro iyo Faysal maxaad ugu baaqi lahayd maadaama iyagu go'aaminayaan madaxtinimada dalka waxaan oran lahaa anigu kelmad kale sii oran maaye beesha bariga burco Soomaaliland lafdhabar u tahay cidda ku habboon
cidda u garataan ina agusha siisaan maan rajaynaya haddii ilaahayna gaarsiiyo difaacii dalka aad looga hadlay madaxweynaha somalilan wuxuu uhi ninkii dagaal doonaya waa laga dharginayaa bal adugu hadalkaa ka warran yaa dalka difaacaya sidee loo difaacayaa bal wixii talooyin aad hayso kolley dee difaaca dalka marka la sheego waxaa jira institutiono u madax bannaan oo ay ka mid tahay wasaaradda difaaca qaranka iyo dee taliyayaal ciidamo ah hadday booliska tahay iyo hadday ciidamada tahay kuwaasubaa jaangoyn karaa difaaca qaranka iyo sirdoonka iyo c I d daba dee waxaa jira institutiono madax bannaan oo dastuurkuna siiyey inay dalka difaacaan madaxweynuhuna dee xaq buu u leeyahy inuu taageero iyo talaba siiyo maadaama dee waddankii madaxweyne u yahay dalkana dee haddii lagu soo duulo waxaan aaminsanahay bariga burco ama bariga aan ka hadlayno maanta inay dadka difaaca runtii lafdhabar ay yihiinoo maantaba ay difaacayaan qarankii iyadoo ciidamo beeleed loo sameeyey runtii dalkoodana u hurtudhaaleeyey una huray naftooda iyo maalkoodaba waxaan aaminsanahay in uu yahay dee madaxweynuhu baaqa ku baaqay in dalka nalala difaaco dhinacaynu ka cadow badan baynu dhinac walba